kulan ciyaareed si weyn markaasi ay u soo agaasimeen Qaran Caamir iyo sidoo kale Maxamuud Cali Cumar, waxaana lagu talagalay in markaasi lagu weyneeyo Allah u naxariistay qunsulkii dalka Djibouti Cabdiraxmaan Hiraabe, waxaana ka qaybgalaya akademiyada kooxda ee markaasi lagu magac daray Hiraabe, waxayna ka kooban yihiin 4 kooxood oo markaasi lagu talagalay inay ka qayb qaataan tartankan oo lagu weyneynayo Hiraabe Allah u naxariistay, waxaana ka qaybgalaya in ka badan 104 ciyaartooy oo markaasi lagu talagalay sidii loogu horumarin lahaa isboortiga dalka, gaar ahaan degmada Mirtaqwe oo markaasi dhawaan ka furmi doona tartanka lagu magac daray Hiraabe Cup, waxaana furmi doona 25 bishan, waxaana laga furi doonaa degmada Mirtaqwe ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana kasoo qaybgali doona dhammaan bahweynta isboortiga ee degmadaasi, kuwaas oo lagu horumarinayo ciyaartooyda si loo helo ciyaartooy aad u wanaagsan oo xirfad u leh kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya qaybna ka qaadan doona. Sidoo kale tartankan ayaa waxaa loogu talagalay in lagu horumariyo ciyaartooyda qaybaha kala duwan ee markaasi degmada Mirtaqwe iyo sidoo kale horumarinta iyo nabadda isdhexgalka bulshada, waxaana sidoo kale la qaban doonaa tartan markaasi loo qaban doono qaybaha kala duwan ee markaasi ka kala socda degmooyinka ay hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay markaasi ugu horeeyaan 4 degmo oo markaasi loo qaban doono tartan sida degmada Ceelbaraf, Mirtaqwe iyo sidoo kale Biyo-Cadde, tartankaas oo lagu talagalay in lagu horumariyo ciyaaraha dalka, gaar ahaan qaybaha kala duwan ee markaasi iyagoona ay ka qaybgali doonaan ciyaartooy aad u fara badan. Dhammaan bahda isboortiga iyo sidoo kale dadka jecel ciyaaraha waxaa markaasi lagu wargelinayaa in qayb weyn ay ka qaataan horumarinta isboortiga qaybihiisa kala duwan ee markaasi degmada Mirtaqwe, waxaana la sugayaa in markaa tartankan uu dhawaan bilowdo, iyagoona aad loo xiiseyn doono ciyaaro kala duwan markaasi halka lagu soo bandhigi doono, waxaana kasoo bixi doona ciyaartooy aad u fara badan oo markaasi jiilal cusub ah, faa'iido weyn markaasi u helaya in ay markaa matalaan xulka qaranka Soomaaliya iyo kooxaha dalkeena ee Soomaaliya iyo sidoo kale tartamada laga ciyaaro guud ahaan dalkeena Soomaaliya. Waxaa tartankan si weyn markaasi loogu mahadinayaa mas'uuliyiinta sida weyn ay markaasi isku hool saareen sidii ay tartankan u qaban lahaayeen degmada Mirtaqwe, waxaana markaasi lagu bogaadinayaa Caamir iyo sidoo kale Maxamuud Cali Cumar oo door weyn ka qaatay qaybaha kala duwan ee tartankan. Sidoo kale tartanka loo qaban doono qaybaha kala duwan ee tartanka degmooyinka waxaa markaasi lagu magacaabi doonaa koobka Super Cup, waxaana markaasi ka qaybgali doona 4 kooxood oo ay markaasi ugu horeeya Ceelbaraf iyo sidoo kale Mirtaqwe iyo Biyo-Cadde ay markaasi ku xifaaltami doonaan. Waxa uu noqon doonaa tartan aad u xiiso badan oo markaasi ka duwan tartamadii hore loogu qaban jiray, maadaama inta badan tartamo waaweyn ka dhici jira halkaasi ay muddo badan hakad galay, laakiin hadda dib loogu soo nooleynayo isboortiga qaybihiisa kala duwan, iyagoona sameyn doona tartamo kala duwan loona qaban doono qaybaha kala duwan ee ciyaaraha.